xafladda qalinjabinta dufcaddii saddexaad ee ka baxda jaamacadda alfa farceeda magaalada burco ayaa ka qabsoontay hoteelka kaafi ee magaalada burco. munaasabaddan oo si weyn loo soo buuxdhaafiyey waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland, mas'uuliyiin ka kala socday labada xisbi mucaarad ee waddan iyo ucid, waalidiin, aqoon-yahan iyo marti sharaf tiro badan. ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Alfa Professor Cabdiraxmaan Maal iyo gudoomiyaha jaamacadda Alfa farceeda magaalada Burco Professor Cabdiqani Ibrahim Xasan, waxaanay si qoto dheer uga hadleen taariikhda waxbarasho iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay jaamacadda Alfa, iyagoo ku faanay in ardayda ka soo baxday jaamacadda Alfa ay ka dhisan tahay dhanka aqoonta ay barteen. qalinjabinta saddexaad ee jaamacadda Alfa University farceeda magaalada Burco. haddii aan intaa ka horeeyo waxaan iyagu ka noqonayaa ardayda qalinjabinaysa. runtii ardayda maanta qalinjabinaysa waa arday ku gaadhaysa 160 arday oo isugu jira kuliyadaha caafimaadka, kuliyadaha socialka, kuliyadaha ICT-ga. waa markii koowaad ee gobolka Togdheer arday intaa tirada runtii ay ka baxdo. ardaydaas runtii waxaan oran karaa waa arday aad aqoon ahaan iyo tay ahaanba runtii aada u dhisan. jaamacadda Alfa oo runtii muddo kooban ka jirtay gobolka oo la aasaasay 2004 kadib markii aan aragnay baahida waxbarasho ee ka jirta gobolka Togdheer iyo gobollada barigaba. waxaan markii horeysay ku bilownay kuliyadaha ICT-ga iyo kuliyadda health officerka oo ka kooban 25 arday. aqoontaadu waa inayna noqon madalays. aqoontaadu waa inayna noqon madalays. waa inay noqotaa qof maxaan rahdaa wax abuuri kara, wax soo saari kara, dadka wax u sheegi kara, dadka wanaagga fari kara, ummadda horumarkeeda ka shaqayn kara, xumaha ka hortagi kara. waxa weeye waa in aqoonta lagu baray anigoo ku kalsoon inaan waxa aan soo tegay oo dhan inaad ku sifowdeen, inaad noqotaan kuwa ka soo baxa ee shahaadadooda laga dheehdo waxa wanaagsan ee bulshadu maanta ay ku faani karto inaad noqotaan ayaan ilaahay ka rajeynaya. dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo iyo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaanshe, iyagoo ardayda qalinjabinaysay kula dardaarmay in aqoonta ay barteen ay dib ugu celiyaan gobolka Togdheer iyo guud ahaanba qaranka Somaliland. waxaad barateen iyo cilmigaad barateen ilaahay ha idinku anfaco. waxaan rajaynayaa inaad noqotaan hormoodkii gobolka iyo ummadda Somaliland iyo guud ahaan wixii aad bartay inaad idinka muuqato oo aad dalka wax kaga bedeli doontaan iyo gaar ahaan gobolka insha allahu tacaala. ka gudoomiye waxbarasho ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inay soo go'aan midhihii aanu ku tabcaynay wax ka mid inay soo go'aan. waxaan markaa anigu afkii waxbarashada ku hadlaya idin leeyahay hambaliyo idin leeyahay. hambalyadaa kadib laba qodob oo dardaaran baan idinku darayaa. labadaa qodob mid waan idinkula dardaarmayaa. waxaa cagta saarteen jaranjaradii ugu horreysay ee tacliinta sare inaad halkaa ka sii wadaan oo aynaan dib uga noqon baan idinkula dardaarmayaa. midna waan idinkala dardaarmayaa wax kasta oo turuturo u geysanaya tacliintiinna iyo wadajirkiinna iyo aqoontiinna oo sidii Cabdiraxmaan sheegay ay qabyaaladu ka mid tahay, balwaddu ay ka mid tahay, waxyaabo kasta oo waxyeelayna inaad ka fogaataanna waa idinkala dardaarmaya. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga wadani Kaysa Cali Geedi ayaa iyaguna madashaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyey. waa damay u baahanay maanta qori qofka qaata muxuu jeedaa soo maaha in uu ina kiciyo rashad aan jirin intaasoo waddo u bannaanay. walaal marka waxaan leeyahay nabaddeena aan ilaashano. burco waa xareedii tacliinta aad barateen dabcodkeeda ha la maqlo
oo idugiyaan codka caaqilka iyo jaahilku idka cod dheeraane codkiina wanaagsan dadka isbara weyn aadigu dhiirigelinaya inaad tacliintiina sii wadataan digriigaa koowaad xubadkunkii looba yaqaan wasiirka wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada Somaliland Hinde Jaamac Gaani iyo wasiirka xiriirka golayaasha iyo dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi ayaa hambalyeeyay ardayda ka qalin jebisay jaamacadda Alfa iyagoo ku dheeraaday muhiimadda ay waxbarashadu leedahay waxaana guud ahaanba ardaydaasi ku guubaabiyeen inay sii wataan hayaanka waxbarasho isla markaasina aanay halkaasi kaga hadhin 260 ka arday ee isugu jira habla iyo inamo ee bartay fakalada kala duwan ee jaamacadda Alfa isla markaana maanta socodka iyaga iyo ujeedada imaatinka iyaga gobolka Togdheer iyadoo uu gobolkii naloo doortay yahay ama naloo igmaday inaanu ka shaqeyno maanta waxaanu u nimid idinka hambaliyadiina iyo inaanu idinla qaadano dabaaldegiina iyo farxadiina aanu idinla wadaagno waxaan idin leeyahay alfa mabruuk hambalyo 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 qiimaha ay waxbarashadu leedahay ama aqoontu wax la soo qaato hadalka Ilaahay iyo rasuulka ugu wanaagsan oo la ixtiraaco waxa dhamaantiin boogtihiin inuu Ilaahay quraankiisa ku yiri qul hal yastawi alladhina ya'lamuuna wal ladina la ya'lamuun miyay maxaa Ilaahay simeeyay kuwa wax garanaya aqoonta leh ee ku tabcay iyo kuwa aan maxaa Ilaahay aqoonta lahayn Ayb Xasan telefishinka Sahan magaalada Burco